iyadoo lagu jiro soo xulista qabanqaabada xildhibaanada soo dooranaya hogaanka sare ee madaxtinimada Puntland 2019 xiligan waxa ka hadhay in ka yar 30 maalmood doorashadii Puntland 2019 hadaba kulan ay isugu yimaadeen gudoomiyaha gobolka Sool ee Puntland Bandhigeen iyo qaar kamid ah uqaashiga waxa garadka gobolka Sool waxa war-saxaafada ku qabteen magaalada Garowe ee caasimadda Puntland waxay ka digeen in maamulka Somaliland ay kala baxaan falgelinta xildhibaanada laga soo xulaya gobolka Sool saxaafadadkan u qabanana in aanu taakiidino baaqiyo hore oo beesha soo jeedisay oo ku saabsanayd xulidda xubnaha baarlamaanka ee beesha jacayl uga qayb galaya dowladda Puntland iyadoo rag kamid ah uqaash oo ilaa lix caaqilay ay markii hore laba qof oo wada sax ayaga aanu marin ay soo xuleen uqaashi kalena ay diideen la soo qabsaday marka waxaan soo jeedinay in talada beesha lagu celiyo iyo garaadka iyo garboodka kale maadaama ay tartamayaan 13 xildhibaan oo saxiixin in lagu celiyo beesha oo taladeeda beesha u madax banaanaato maadaama labada qof dad gaar oo dana gaar ah iyo meelo kale ay ka socdeen halkan waxa fadhiya laba chief caaqil baa fadhiya oo iyaguna hadli doona marka baaqaas aan ku celinayna in dadku ogaadaan wixii la ascaanood ka dhacay qolka midow lagu saxaynay inay ahayn wax tala jaacsiyaad isugu yimay ahayd wax dana gaar ah wataan iyo dad gaar ah lacag lagu bixinayay mid Somaliland ka timiyo mid mashruuciin ka timiba waxba ka soconayn waanu cadeynaa taladiina lagu celinayo jaacsiyaad iyo garaadka iyo chiefafka halka fadhiya iyo garboodka kale in dib la isugu noqdo oo si xalaal labada xubnood loo soo xulo waqooyi ka yimid la baxay Somaliland waxa la yiri waxba lagu kala saaray waxa la yiri waxba lagu doortay wali ma arag laba maamulo isku cadow ah oo maamulkii kale soo dooranayo dadkii u matali lahaa xildhibaanada Puntland waxa aad looga yaabo waxa aad looga naxo jacayl markaa yiraahdo jacayl waqtiyo badan soo joogay mar afar caaqil buu lahaa haddana 8 baa ugu wardambeysay hadda soo 40 baa iska gaarayaan oo qolo walba magteeda gaarba wala baxay wixii kala yaacsanay la isku soo celiyo la soo ururiyo bal afartii hadda la sameyn karo 8 la sameeyo qorshiheeda wadni in la sii kala yaaciyo ama sii kala fogeeyo waxay reerkan dal ma aha magacana dal ma aha qabiilka dal ma aha marka inta ka gudbo halka waxa weeye jacayl laba chief wala chief ka hore waxa xaajin maxamuud goole Umar xaaja ka dhaxlay hadana maxamed baa fadhiya maxamed ahmed ali maxamed goole hadana fadhiyo chief caaqilkiya midna bay waa jaaq bilaa inta kala uqaalba garaadkii waxa uu dhaxayna uqaash waxaan ogeyn labadeeduna uqaash iskooba gaari karto wadii kala dambeeyay jirto anagu wuxuu garaadku ogeyn ma gaari karo wadii kala dambeeyay nidaam jiro nin walba wuxuu daabiya ha uu ka dhaxlaya koona beesho aqaal hayna waa jiraan afarta hore muujane hawooye jawaabdaar baa jiray inta kala aqaalba jirin burburka iyo wixii ka horeeyay yimaadeen marka waxa la yahay uqaasha ku fikirtay 13 qof oo laba dumar ku jirto inay u saxaan warqado haddana laba inta qol la galaan ka doortaan ma isku dhufasho jacayl ma kaafiicni ba ma ana saadoono wax u qaybinaya reerku si wax u qaybsada maanta ninkiisu ku jira federaalka ku jira Puntland dowladda ismaaciil waqooyi galbeed ku jira haddana isaga u baahan oo hadda kana fadhiisanaya cidna laga yeeli maayo in beeshu si wanaagsan oo hufan oo jacayl oo la isku tixgelinayo looga doorto taladana loo celiyo garaadka iyo beesha cidii nasiibkeedu tahay un baheli doonta
نمان علف ولا هنيلي ما إنك علف كلهم بهري دونا بنان ودتك كويد ماضي دويا كوما أنا دورنا ضد بانو كو دورناي dadkiina laga kala kici si ay isugu soo ceshan lahayd oo magacaaga iyo jiritaanka qabiiladaada u dooran lahayd aday kula taala jiif aqaladii wad maqlaysaa maamul goboleedka Puntland madaxtooyadooda fadhiyaan kuwii Soomaaliland ka hadlayeen wad maqlaysay adigu taladu waa kula jirtaa ama Soomaaliland iyo dadka kala ka tagay ra'yigooda tixgeli ama dadka xaruntii Puntland ee harti ka hadlaya tixgeli la talawada ku fadhida dadka meesha wax laga dooranayaan Hargeysa maahe waa garoowe maxamed axmed jaamac maxamed bidhaanshe telefishinka caalamiga SBS garoowe